khaliijka ayaa mar kale laga maqlay qaraxyo waaweyn iyada oo magaalooyinka Dubai, Doha iyo Manama lagu dhuftay weerar ka dhan ah hantida Mareykanka ee halkaasi taala kadib dilkii hogaamiyihii sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei. dadka degan magaalada Doha ayaa waxay sheegeen inay maqleen qaraxyo xoog leh oo ay arkeen qiiq madow oo cirka isku shareeray, halka magaalada Dubai laga arkay qiiq cad oo ka dhashay gantaalada hypersonic ah iyo waliba sidoo kale qiiq madow oo ka kacaya dekada Jabal Ali. magaalada Manama ee dalka Bahrain ayaa sidoo kale waxa lagu arkay qaraxyo xoog leh, inkastoo aysan jirin warar rasmi ah oo sheegaya khasaare dhanka dadka ah. tan iyo Sabtidii Iran ayaa waxa ay geysatay weerar gantaalo hypersonic ah iyo diyaarado kuwa aan duuliyaha lahayn ay ku qaaday saldhigyo Mareykanka iyo Israa'iil ay ku leeyihiin gobolka, iyadoo laga warhelay sidoo kale dhaawacyo iyo dhimasho, gaar ahaan isku daygii weerarka dugsiga gabdhaha ee magaalada Minab oo ay ku dhinteen ugu yaraan 148 qof. madaxweynaha Iran Mas'ud Pezeshkian ayaa waxa uu sheegay in weeraradu ay yihiin mid sharci ah oo argoosi ah, isagoo ku tilmaamay in dhimashada Khamenei ay tahay dagaal furan oo ka dhan ah muslimiinta, gaar ahaan Shiicada buu yiri. sidoo kale madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu tacsi u diray Iran, isagoo ku tilmaamay dhimashada Khamenei dil fool xun oo xadgudub ku ah xeerarka bini'aadanimada iyo sharciga caalamiga ah. dhanka kale Israa'iil ayaa waxay xaqiijisay in ay bartilmaameedsatay in ka badan 30 goobood oo ku yaala Iran, iyada oo sidoo kale ay sheegtay in weeraradu ay sii socon doonaan. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu digniin culus u diray Iran, isagoo sheegay in Mareykanka uu weerar xoog leh uu soo celin doono oo aan noociisa hore loo arag haddii ay ka jawaabaan dilka Khamenei. Iran ayuu yiri dhacdooyinkan waxay abuureen walaac caalami ah oo ku saabsan khatarta sii kordhaysa ee dagaal ballaaran oo ka dhaca khaliijka iyo gobolka Bariga Dhexe. Iran waxa ay sidoo kale gantaaladeeda hypersonic ah ay gaareen Tel Aviv, iyada oo burbur xoogan gaarsiisay dhismayaasha dhaadheer ee ku yaala halkaasi. sidoo kale safaaradda Mareykanka ee Bahrain ayaa ugu baaqday muwaadiniinteeda inay ka baxaan hoteelada ku yaala magaalada Manama ee dalkaasi caasimadda u ah, kadib markii gantaalada Iran ay ku dhaceen hoteelka Crown Plaza oo sababay dhaawacyo iyo burbur xoogan. waxa laga cabsi qabaa mar kale in gantaalada Iran ay sii socdaan, iyada oo marba ka dambeysa ay sii kordhayso weerarada ay Iran ku beegsanayso dalalka khaliijka. Mareykanka ayaa bilaabay cabsi xoogan oo ku aadan saldhigiisa ku yaala wadanka Djibouti inay soo gaari karaan markaasi gantaalada ay ridayaan Iran, waxaana uu xusay in shaqaalihiisa ugu badan ay isaga baxaan gudaha wadankaasi Djibouti. inkasta oo ay xusid mudan tahay in saldhigga weyn ee Mareykanku uu halkaasi ku leeyahay ee Cabo Limonia uu yahay mid ka mid ah saldhigyada ugu waaweyn ee Mareykanku uu ku leeyahay mandiqada, waxaa sidoo kale jirta in xilligan cabsi weyn ay soo food saartay saldhigga ku yaala dalka Djibouti. inkasta oo sidaas kaga fogeyn saldhigga dawladda China, haddana Mareykanku ayaa dhanka kale waxa uu qabaa cabsi xoogan oo ku aadan xiriirka Iran iyo sidoo kale China, taasi oo keeni karta in basaasida iyo sidoo kale waxyaabo kale lagu sameeyo dhaqdhaqaaqiisa militariga iyo sidoo kale qorshayaashiisa dagaalka. Mareykanku waxa uu sheegay in xilligan la joogo in loo baahan yahay in muwaadiniintiisu ay isaga fogaadaan goobahaasi, sidoo kalena lagu reebo saldhigga oo kaliya koox farsamo ah iyo sidoo kale khubaro kuwaasi oo howlaha iyo sidoo kale waxyaabaha ay kaga baahan yihiin halkaasi ka qaadanaya. cabsida soo food saartay Mareykanka saldhiggiisa ku yaala Djibouti waxay imaanaysaa isagoo ka mid ah bartilmaameedyada ugu dhow ee Mareykanka ah ee lagu qaadi karo weeraro marka laga eego in Iran ay dhammaan Bariga Dhexe ay duqeysay dal kasta oo ay ku tuhmaysay in saldhig uu ku leeyahay Mareykanka. dalalka isku taga Imaaraadka Carabta, Sacuudiga, Jordan, Qatar iyo sidoo kale Kuwait dhammaantood waxa ay wajaheen dhaqdhaqaaqyo iyo sidoo kale gantaalo dhowr ah kuwaasi oo markaasi dawladda Islaamiga ee Iran halkaasi ay ku riday, waxaana muuqanaysa in xaalada adag ilaa iyo hadda ay ka taagan yihiin. Iran talaabooyinka ay qaaday weli ma hakan oo marka aad eegto isku taga Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale Israa'iil weli waxa ay wajahayaan xaalada adag, iyada oo sidoo kale goobo muhiim ah oo ku yaala gudaha wadankaasi isku taga Imaaraadka Carabta si weyn Iran ay u weerartay. marka laga soo calaamadiyo xaaladaha ku xeeran in Imaaraadka Carabta si weyn loo beegsaday garoonka diyaaradaha ee Dubai International iyo sidoo kale dekada weyn ee Jabal Ali, hoteelka caanka ah ee loo yaqaano Burj Khalifa iyo goobo kale istiraatiijiyadeed, dhammaantood waxa gaaray falcelinta iyo sidoo kale waxyaabaha argudashada ay ku tilmaantay Iran, waxaana dhammaantood ay qayb ka noqdeen waxyaabaha Iran ay u qaybinayso dalalka ku yaala khaliijka Carabta, waana goobo ka mid ah meelaha ganacsiga iyadoo ay xusid mudan tahay
in jasiiradda macmalka ah ee gacan ku samayska dhankeeda isku tagga Imaaraadka Carabta la weeraray. Cabsida Mareykanku xilligan uu muujinayo waxa ay ku soo aadaysaa saacado kadib markii dowladda Iiraan ay shaacisay in uu geeriyooday hogaamiyahoodii Ayatollah Ali Khamenei, laakiin sidoo kale ay sameyn doonaan argudasho. Waxaana sidoo kale xusid mudan in banaanbaxyo waaweyn ay ka dhacayaan gudaha Iiraan, kuwaasi oo 40 cisho loogu baroordiiqayo hogaamiyaha dalka maamulayay tan iyo sanadkii 1989. אלון, בוא נשאיר את המצלמות ונלך. בוא נשאיר את המצלמה ונלך, לא? עוד מעט הם ילכו מפה, הם השתעממו, אין להם כבר במה. צלמו את הבור וצלמו את הזה, וזהו. זה שהם קוראים גם ביחד, זה פשוט מדהים. הם גם מתחרים אחד בשני, גם לא יכולים אחד בלי השני. אנחנו נפגשים. צלם, סטיל. לא צלם סטיל, זה צלם. יותר ותיק מכולם. כן,
קרוב כמו השנים של דברים של מה? באמת. אתם מוכפים אותנו כל פעם. כאן, בתל אביב,